السلام عليكم فضلا هذا نوع شو سبسكرايب شهر سيادة الله سعطة عشرة دنبي مهتنين. بسم الله عاوة وين سلامي غيرت هالكن عاوة عايز قصة قدبنية سيدا اسكاديم لهاد ميسان كشركة أما عليسكا شركة حياته سيبا حياته كليها قف كفوشة iyo caloosha halkan waxaan kugu sheegay waxyaalo yar aad ka heli karto gurigaaga waxaad sameynaysaa koob ama bakeeri biyo kulul baad soo qaadanaysaa waxa qandaca waxaad sidoo kale ku daraysaa qaado tufaax shiidan caysada ku jiro sajarka si fiican baad isku qasaysaa labada shay waad cabaysaa subax walba aroortii baad cabaysaa intaad wax cunin ka hor waxa macquul in aad cabayso xoogay sokor iyo waxa lagu dareemayo inaad cabayso macquula waxaad ku daranaysaa qaado ama malqacad malafka saafida ayaad ku daraysaa si fiican baad isku walaaqaysaa misana waad cabaysaa markaad cabto 30 daqiiqo kadib ayaad wax cunaysaa dad wax cun lahayd iyo dad quraacan lahayd waxaad sii wadanaysaa nolol maalmeedkaagii caadiga ahaa ee halka ka sii wadanaysaa haddii aad isbuuc sidan u wado si sax ah joogtaa su'aal isbuuc weeye waxaad iska dareemi doontaa isbedel weyn insha Allah haduu alla kula garab galo marka waxa teeda kale tufaaxu wuxuu la dagaalamaa low dominanka waa jixirta ama baruurta jirka sameeyo ayuu hoos dhigaa macnaheedu wax ma aha inuu amataadka ka xireyso badan waxaan u fahnaa dad Soomaaliyeed waxaan ayl ku dhimaadana inuu amataadka qof ka xiro deetana qof gaajo ku rido halka uu caato may caybad aanaysa cunada inta cuni jirtay in la mid in ka fiican bood cunaysaa kaliya jirkaaga wuxuu hoos u dhigayaa sameynta jirka isagoo caadiyana inaad aragteen macquul dadka yoga ayaa loo soo qoray tufaax inay cunaan subax roti caadi cunan wad ma santin daawashadina fadlan